waxaan runtii u mahad celinayaa cid kastoo inagala soo qayb gashay oo ugu horeeyo Dato Sri Dr. Idris Jala iyo teamkiisa oo meel fog inooga imaaday si ay inoola wadaagaan khibradooda iyo aqoontooda. Mudane madaxweyne maanta ballanku wuxuu yahay in ay golaha wasiirada u bilaabato dood cilmiyeed la xiriirta dhowrkan arrimood oo soo socota. Saan ognahay muddo 30 iyo dhowr sano ah ayaynu haddaan Soomaali nahay adduunyada aan u joognay si aynan dawladeenu functioning ahayn si fiican u shaqeynin. muddadaas 30 iyo dhowrka sano ah waa muddadii dunidu dhaqaaqday ee technology-da la helay ee dhaqaaluhu hormaray oo wad adduunku isbedelay way. Marka maanta waxaan u jeednaa in fara badan oo dunidii ama aynu isla ekayn in xorriyadda wada qaadanay ama inagaba dambeeyay in badan oo ka mid ahay meesha ay joogaan iyo maanta meeshaan inagu joogno masaafo dhowr iyo 30 sano ah ama ka badan baa inoo dhaxaysa. marka waxaan rabnaa oo aan garwaaqsanay maadaama aan hadda ku soo noqonnay dawladnimadeennii shaqaynayso haddaan rabno inaynu caalamka higsanno inaysan arrintu ku soconaynin as usual ee aan u baahannahay speed dheereeya oo nooca caadiga ahaa ee loo socday ka duwan mar haddaan goosannay inaynu adduunka gaadhno. maadaama marka ay tahay inaan geedi dheer oo aad iyo aad u ordaya aan qaadno oo si aan caalamka u higsanno waxaan raadsanay oon isku daynay bal inaan helno dadyow kale geediye noocan oo kale ah ee saa u dheer soo raray oo garanaya meelaha la maro iyo meelaha lagu sii nasto iyo inta ay qaadanayso. sidaa darteed baa waxaan u raadsanay khubaro taqaana sida reeraha loo raro. maanta marka waxaan rabnaa in ay khubaradani ay u fadhiyaan inay ina tusaan sida speed loogu dhaqaaqo oo 30 iyo dhowr sano dad ka horeeya durbadii baa aad u kajkarayn karto. sida aad ogtihiin mudane madaxweyne 7 bishii August ee sanadkii hore 2022 ayuu baarlamaanku xukuumaddan uu codka kalsoonida siiyay ayada oo ka wasiir ah iyo programkii 6 tiir ka koobnaa ee aan soo hordhignay golaha shacabka. waxaan rabaa inaan halkan mudane madaxweyne hortaada ka amaano cid kasta oo wasiiradan ka tirsan dadaalkii ay samaysay muddadaas kooban ee halka sano iyo 2 bilood aan buuxin ah oo aan ku tilmaami karo overall marka la isku daro in wax wanaagsan la qabtay. way dhici kartaa in la kala horeeyo way dhici kartaa in la kala dambeeyo laakiin marka la isugu kaaya daro intii la isugu kaaya hagaajiyo percentage fiican baa noo soo baxay. marka cid waliba oo runtii geedigaas halka sana oo dheer shaqo badan ka soo qabatay intii karaankeeda way ku mahadsan tahay. kuwa waxa weyn qabtayna aad iyo aad bay ugu sii mahadsan yihiin. intaas kadib mudane madaxweyne waxaan maanta intaa dheer oo aan rabnaa inaan la wadaago wasiirada iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay. Soomaaliya waxay taagan tahay meel muhiim ah oo ay jidad badani ku kala baxayaan. waxay taagan tahay maxadad ay lagama maarmaan tahay in la yar istaago oo la fakaro oo deedna la isweydiiyo meeshaan aadayna waa xagee. waxaan rabnaa
waxyaabaha hore iyo marxalada jiray inaan ka baxno oo aan sanadkan soo socda Ilaahay idankiis aan dhahno waan gadaal baan iska marinay waxaan ka sheekeynaynaa boosti al-shabaab oo aan rajaynayno inay khawaarijtu aan ka gudubno marxaladooda oo aan marxaladda ka dambaysa khawaarijta aan u gudubno waxaynu mudan madaxweyne aan hor taaganahay oo aan rabnaa asagana oo gadaal iska dhigi doonaa arrintii hibik iyo completion point-geedii oo aan rajaynayno in deyn cafiski asagana uu gadaal inaga maro oo aan dhahno kaasna waan soo dhaafay waxaan u taaganahay in aan haddii Ilaahay yiraahdo annagoo aad ugu mahad celinayna oo aad u mahadsan yihiin in aan sagootino mas'uuliyadana kala wareegno walaalaheena atmis haddii Ilaahay yiraahdo mid kale oo laga yaabo inaan dadku qaarkood madaxweynuhu igu raacsanayna waxaan jeclahay inuu asna ku jiro la yiraahdo post 4.5 kana waxaan jeclaan lahaa inaan ka sheekayno haddii Ilaahay yiraahdo madaxweyne muddo fara badan oo wadankeenu uu ku soo jiray crisis iyo political instability iyo dhibaato badan runtii waxay keentay in ay caqabad ku timaado arrintaas oo waliba lagu lamaaneeyay khawaarijta oo dalkan aad iyo aad u dhibtay arrintaas waxay aad iyo aad hindran ugu keentay progresskii iyo talaabo kasta oo qaadi lahayn ayay dhibaato weyn ku keentay maantana wali waxaad moodaa inaan waajahayno dhibaatooyin kala duwan oo aan tira yarayn waxaa laga maarmaana 4 arrimood inaan wax iska weydiino midka koowaad waa kan sheegnay waa security-ga oo aan ognahay inuu inoo yahay inaga mar walba priority midka labaad waa economic growth-ka iyo sideen dhaqaalaheena kor ugu soo qaadnaa oo su'aalina hor taalla midka saddexaadi waa social development-ka iyo sideen kor ugu qaadnaa arrimaha bulshada iyo midka afraad oo ah political stability afartaad su'aalaad oo waaweyn ayaa runtii ina hor yaala mudan madaxweyne haddii aan ka soo bilowno masalan arrinta security-ga waxaa lagama maarmaana inaan helno diyaarino ciidan cudud iyo cadad leh inagu filan waliba si fiican loo qalabeeyay oo u hubaysan qodobka labaad ee asagana muhiimka ah ee aan uga baahannahay waxa weeye inaan dalkan aan dhaafino habaar qabooyinkan ina hor taagan ee khawaarijta ah ee dhibaatada fara badan dalkeena ku haya si marka aynu arrintaas ugu guuleysano waxaa lagama maarmaan ah inaynu maanta isweydiino arrintaas commitment-geenu intee la egyahay aragnay madaxweynaha khayr Allah siiyo xataa suuro kale u yeeshay commitment-gii iyo waad ogtiino ugu jiida hore u taagnaa iyo furinta laakiin jiidaas iyo furinta madaxweynaheenu taagan yahay inagu ma la taagannahay haddaanay xubnaha golaha wasiirada waxay daliil u tahay inaynaan saaka isu ekayn asaga iyo inagu intaasayna isu ekayn bay micnaheedu tahay in madaxweynuhu uu inaga horeeyo laakiin inayna inaga dagaalka ku jirin sida uu ugu jiro si lamida ayaa aad u muuqanaysa isweydii marka ka wasiir ahaan warwar intee leeg bay kugu haysaa habeenkii ma isweydiisaa markaad jiifto ma soo kacdaa dalkan dhibka ay ku hayaan nimankaas maadaama aan hore ugu heshiinay inaan horumar jiri karin waxba la sameyn karin intay nimankaasi joogaan mise waa saan sheegay as usual wax walba waqtigii la seexan jiray waqtigii la jiifan jiray sidii loo socday waxaa meeshaas aan rabaa inaan farta ku fiiqo waxa maanta aan u fadhino oo khubradani ay u fadhiyaan
oo ay boqolaalka kiiloomitir soo safreen kumanaanka aan dhaho dhowr iyo 10 saacadood oo madaxweynuhu halkan u fadhiyo oo aynu inagu halkan fadhiyo dhamaanteen waxa way hal shay inaan xaqiijino maanta waxa kale oo dhani waa farsamo laakiin hal shay oo dhib badan commitment serious ma nahay dhab ma inaga tahay waxan inaan isbedelno marka haday dhab inaga tahay waa inaan isbedelno oo isbedelku oo aniga iga muuqda laakiin hadaada isbedelin oo sidaada iska tahay ha rajaynin wax walba natiijadu sideedu in bay ahaanaysaa taa marka intaasan ka dhihi lahaa arrinta marka security halkaas ayaan uga tagaya waa arrin muhiim ah oo ay laga maarmaan tahay inaynu ka hadalno arrinta dhaqaaluhu waa engine-kii dee lagu dhaqaaqayo way haddaan dhaqaale jirin oon dhaqaalaha la hormarin dee lama dhaqaaqayo waad ogtihiin waxaa lagama maarmaan ah in aynu xoogga saarno inaan productive sectorsken inaan xoojinno oon kor u qaadno si GDP-geennu uu kor ugu soo kaco oo wax soo saarka u badino aan u yeelano iyo si aan buffertiga ama faqriga u yarayno si shaqo la'aanta aan u yarayno oo dadkeenu ay shaqo u helaan waa laga maarmaan arrintaas si aynu dhaqaalaheena kor u qaadno waxaan u baahannahay inaynu go'aan ku gaadhno oo aynu isla qaadanno hufnaanta iyo transparency-ga accountability-ga iyo isla xisaabtanka good governance-ga iyo xukun wadaagga iyo maamul wanaagga inaynu isla qaadanno inaynu ku dadaalno aynu xoogga saarno oo aan ka shaqayno inaynu fostering private sector growth-ka private sector-keenna ama yani ganacsigeenna gaarka loo leeyahay waa inuu kor u soo kacaa si dadku ay shaqo u helaan oo shaqo abuur u timaado waxaan u baahannahay inaan soo jiidanno maalgelinta shisheeye oo aan dalkeenna aan keenno si shaqo loo helo waxay la tahay haddaan intaas samayno waxaynu dhigaynaa foundationskii ama karkaaradii iyo gogoldhiggii dhaqaale ee dalkeenna ayaan dhigaynaa arrinta horumarinta bulshada arrimaha horumarinta bulshada waxaa lagama maarmaan ah inay inaga go'naato inaan dadkeenna aan xoojinno oon empower garayno waxaa lagama maarmaan ah in aynu helno oo waajib inagu noqoto oo aan fulinno oo aan suurto gelinno in canug kasta ama ilmo kasta oo Soomaaliyeed oo waxbarasho gaaray uu quality education helo waa laga maarmaan waxaa laga maarmaan ah in health care iyo caafimaadka asaasiga ah uu dalkeenno dhan corner to corner inuu gaaro oo uusan qofna waayin caafimaadka asaasiga at least taasna waa laga maarmaan waxaa laga maarmaan ah inaan xal waara ama durable solutions waxa la yiraahdo u helo dadkeena IDPs-ka ku jira ee ku tabaalaysan dhibaatada dheerna runtii ay ka soo martay muddada dheer intaasoo dhanima waxay tahay arrimaha bulshada ay tahay inaan wax ka qabanno ee ina sugaysa waay arrinta siyaasadda waxaa lagama maarmaan ah siyaasaddu sideedaba haddaan la herin siyaasad degan waxaa la yidhahdaa siyaasaddu waa midta istiirgaraysa ama jihaysa in progressku uu socdo si degan uu socdo horumarku ma socon karo haddaysan jirin siyaasad degan haddaysan jirin sidaa darteed waxaynu u baahannahay siyaasad degan taas oo ay tahay marka koobaad inay inaga go'an tahay inaan constitution-keena dhammayno siyaasaddeenu ma deganaanayso haddaan dalkan loo helin constitution iyo dastuur dhammaystiran oo dadkani ay isla qaateen oo heshiis lagu yahay haddaan la helin sidaa darteed waa constitutionku waa kow waa inaynu isla qaadno waxaa lagama maarmaan oo kale in ay jiraan electoral roadmap oo heshiis lagu yahay asagana oo cad oo dadku ay garanayaan meesha loo socdo ee loo geedigalayo waa inay dadku yaqaanaan
midka saddexaad waxaa laga maarmaana inaan federalismka hirgelino oo aan dhammaan federaalka uu hirgalo oo dalkoo dhan uu ka hirgalo oo ilaa degmo tuulo uu gaadho waa laga maarmaan haddii aan siyaasaddu aysan deganayn oo dadku jihada cadayn meesha loo socdo waad ogtihiin dhibaatooyinka ka imaan karta waad ogtihiin marka waa laga maarmaan arrintaas waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay say iyo aragti ku yeeshaan future-kooda oo ay meesha la geenayay ayagu ay yaqaanaan oo qofka xukumaya ayagu ay doortaan taasna waa laga maarmaan arrinta inoo taala ay ka mid tahay iyo ugu dambaysta inaan isku dayno dalkan inaan digital garayno Soomaaliya haddii aan digital garayn weyno dalkeenu wax fara badani oo adduunka ka mid ah wali wuu inaga sii horeynaya transparency-ga iyo accountability-ga ayay kor u qaadaysaa services-ka aan bixinay quality u sameynaysaa dalka ay isugu soo dhawaanaya marka intaba waan u baahannahay mar hadday sidaas tahay waxaa laga maarmaana in aynu ka shaqeyno in aynu bedelno mindset-ka keenna iyo ka bulshadeena intaba inaan bedelno waa laga maarmaan inaan u bedelno mindset ogol initiative-ka mindset ogol collaboration-ka mindset ogol isbedelka oo horu dhaqaaqaya inaan leenahay waa laga maarmaan sidaan sheegay malaha waaban dheereeyay waan soo koobayaaye waxay la tahay maanta waxaan joognaa maalintii isbedelka aan ku magacaabayna laga bilaabo maanta waxaan rabnaa in aan bedelno attitude-keennii iyo sidaan u fakaraynay iyo sidaan u dhaqmaynay oo dhan waxaasoo aan hadda soo sheegno oo dhan baa ina hor yaallo oo culaysa inaan speed aad u dheereeya ku dhaqaaqnana waan rabnaa tusaale ahaan haddii aan maanta aan marayno 70% budgetkeenna in laynaga saacido oo uu ku tiirsan yahay gargaar dibadda laynaga siiyo waxaad ogtihiin deyn cafiska hadduu dhaco waad qaan gaartay soco way arrintu waa isku filan tahay waxaan rabnaa 70% kaas in 1 year gudaheed inaan ku soo celinaa rabnaa oo inagu isku filanaa rabnaa su'aasha marka waxay tahay marka sida aan hadda u soconno ma ku soo celin karnaa maya kuma soo celin karnaa marka orgi fuulaya iyo qabaal mii ka dhiganaaba 7 waa inaan samada gaadhnaa waan ku qasbannahay yani marka waa qasab meel looga leexan kara ma leh mar kale waan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo nagala soo qayb galay hawshan muhiimka ah oo runtii jihaadkii uu ku jiray iyo furuntii uu ku jiray aan uga joogsiinay arrintan darteed muddo sugayay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo martida inala joogta oo runtii aan rajaynayno inaan ka faa'iideysan doono waxaan u mahadcelinayaa safiirada sharafta leh ee ayagana inala jooga iyo akhyaarta oo dhan